بسم الله الرحمن الرحيم وربنا ودور فرنا waxaa kamid ah jaamacadaha Djibouti oo hadda ku laamay waxbarashada ka duwan markii waxbarashada dhexe iyo hoose lagu laabtay geeskana waxaa si rasmi ah u bilaabay tartanka xagga Ramadaanka iyo wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha isboortiga Madax Xasan Faarax Magan oo saaka tartanka si rasmi ah u rajay isaaga ciyaaraha kooxda sidii kooxaas waxa ay si aad ah ay isku diyaarinaysaa ciyaarta dhexmari doonta kooxda sidii kooxaas iyo kooxda kale ee Al-Wahda ee dalka Sacuudi Arabia ciyaartaasi oo ku beegan maalinta Isniinta gaar ahaan habeenka saacad markay tahay 9:00 dhinaca dalka Pakistan waxa hadda uu 18 bisha Oktoobar ballan ku qaaday inay Pakistan ku yeelan doonto Benazir Bhutto oo hore ra'iisul wasaare dalkaasi uga ahayd iyadoo sheegtay in ay doonayso in la qabsanto ra'iisul wasaare Pervez Musharraf dhinaca dalka Indonesia muddo cusub oo qiyaastiisa lagu qadaray ashan marka loo eego qiyaasta rashtarka ayaa ku dhiftay dalkaasi Indonesia waxaana laga tagay dadka iyagu ku dhintay guryo hore uga dhacay dhinaca dalkaasi Indonesia ilaa kontonyo qoftirooda ay gaarayso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعويسنا يكسر مريين من يومنا يا الكسور دوادة ورحي دلك يجدون انتي لك ونبسو غاري عاوة وركي ودنا kadib dugsiyada hoose iyo kuwa dhexe ardayda jaamacadda Djibouti ayaa waxbarashadooda maanta si rasmi ah ugu laabtay waxaana jaamacadda Djibouti ay waxbarashadooda ku noqdeen iyagoo tirada ardayda ay tahay 1280 arday oo galaya fasalka koowaad ama sanadka ugu horeeyay waxbarashadooda ka maqan doona jaamacadda Djibouti waxaa gees kale tirada iyagoo ardayda sanadka labaad ama dugsiga galaya lagu qiyaasay ilaa 632 waxaa 229 ay yihiin ardayda ku jira dhinaca saddexdaad kulliyadood ee iyagu xagga macadka teknolojiyadda ah waxaana waxbarashada xagga jaamacadda ka bilaabantay Djibouti maanta iyadoo ardayda jaamacadda Djibouti ee fasalka ama sanadka hore waxbarashada galay ay ka yimaadeen dhinaca hay'adaha waxbarashada guud iyo weliba xagga dugsiga liik loo yaqaano waxaa hadda jaamacadda Djibouti ayadu markan soo bandhigaysaa waxbarashada xagga tababarka guud iyo xagga sayniska iyo weliba xagga cilmiga suugaanta ama loo yaqaano xagga dhaqaalaha iyo xagga maareynta dhinaca macadka jaamacadda laga teknolojiyada iyaguna kala ah xagga waxbarashada ayaa sidoo kale halkaasi laba qaybood waxbarashada markaasi lagu bixinayaa waa dhinaca macadka Djibouti xagga teknolojiyada waxaana gees kale dhinaca warshadaynta iyadana ay tahay mid hadda yana la soo bandhigayo shahaadooyinka qaybta jinsiga loo yaqaano waxaana waaxda dhinaca waxbarashada tarsarku ay tahay mid sidoo kale lagu diyaarinayo xagga ganacsiga xagga informatiga iyo weliba dhinaca maareynta waxaa haddaba ay macadka Djibouti teknolojiyada soo bandhigaysaa laba shahaado oo isagoo kala ah kuwa lagu diyaarinayo Djibouti taasi oo ah iyadu shahaado laga qaadanayo dhinaca hadalkiiska iyo mid xagga loogu talagalay suugaanta qoran ee leefarka loo yaqaano taasi oo ardayda xagga jaamacadda Djibouti gaar ahaan luqadaha carabtu ay waxbarashadaasi iyagu ku dhigan karaan iyagoo intooda badan ka yihiin liisada luqadda carabiga markaasi lagu dhigto waxaana hadda muuqata ilaa 113 barayaal ama professor in ayagu heer u yihiin si ay u soo dhaweeyaan ardaydaasi jaamacadda hadda waxbarashadooda dib uga bilaabanaya gaar ahaan jaamacaddeena aadka u dhan yar iyadoo haddana qaabilaysa dhalinyaro fara badan oo reer Djibouti ay waxbarashadooda markaasi ka helayaan halkaasi jaamacaddaas waxay u tahay mid caalamka laga yaqaano gaar ahaan shahaadooyinka ay bixinayso oo dib ahaan maadooyinka kala duwan oo lagu barto iyo cilmiga kalaba ay u dhan yihiin waxaa jaamacadda Djibouti ay ku taallaa gaar ahaan labada dhinac ee jaamacadda Djibouti waxay tahay mid aad u ballaaran oo markaasi dhalinyarta reer Djibouti ay ka faa'iideysan karayaan waxaan ahayn ka maqnaanshaha dowladdu aad u weyn oo fitaatarka loo yaqaano oo loogu talagalay ardayda halkaasi ay waxbarashada ay ka wataan balse taas ay tahay haddana iyada la buuxiyo geestaasi haddana waxba ay ka dhigeen oo waxbarashada halkaasi ardayda reer Djibouti gaar ahaan jaamacadda ay uga sii socoto hadda maalinta ugu horeysa ee waxbarashada ay ku laabteen jaamacadda Djibouti ayaa waxa ay hadda madaxda jaamacadda Djibouti gaar ahaan gudoomiyaha cusub ee jaamacadda Djibouti oo ay yeelayaan mas'uuliyiinta u dhow ay soo booqdeen gaar ahaan fasalada kala duwan ee dhinaca waxbarashada waxaana gudoomiyaha jaamacadda Djibouti yeelayay sida xogayaha guud ee jaamacadda iyo weliba mas'uuliyiinta saddexda kulliyood ee kala duwan xagga macadka teknolojiyadda oo iyagu markaasi soo maray gaar ahaan fasalada ardayda markaasi ka bilaabayaan waxbarashadooda sanadka ugu horeeya
waxaan halkaasi aynu waraysi la yeelanay gudoomiyaha jaamacadda Jabuuti mudane fahmi isagoo kaga waramay sanad dugsiyeedkan cusub ee xagga waxbarashada ee gaar ahaan jaamacadda Jabuuti isagoo taasi ku sheegay inay tahay mid lagu doorsanayo oo arday fara badan iyagu jaamacadda ay markan iyagu ku soo galayaan oo tirada ardayda jaamacadda ay maraysan intii hore kasii kordhayso taasina ay tusayso sida ardayda reer Jabuuti iyo dadka Jabuutiba ay u aaminsan yihiin jaamacadda isla markaana ay ugu faraxsan yihiin duruusta iyo cilmiga kala duwan ee jaamacadda ay markaasi soo bandhigayso waana arrin iyada markaasi ruuxaantii lagu farxo ayaa yiri fahmi gudoomiyaha cusub ee jaamacadda Jabuuti oo tilmaamay in jaamacaddu markan iyadu ay hore u sii tallaabsanayso inkastoo haddana ay markaasi wax kasta ay u dhow yihiin haddii ay noqoto cilmiyada kala duwan duruusta iyo mashaariicda ay qaato jaamacaddu waxaa haddana muuqata in ardaydu ay ku midaysan yihiin jaamacaddaasi Jabuuti oo ay ka rajeynayaan waxyaabo fara badan in markaasi waxbarashadooda ay uga soo korodho isla xagga wararka jaamacadda oo ku saabsan hanoo ku sii socon waxaa wararka qaarkood ay markaasi sheegayaan in ardayda marka lagu jaamacadda Jabuuti ka ambaqaaway ay ka nasiib badan gaar ahaan nasiib xagga natiijada iyo guul ay ku soo horin karaan dhinaca waxbarashada oo ay ka gaari karaan taasi oo uu raacdiyay isagu jaamacadda Jabuuti markaasi wax ka baranay haddana booliis markaasi dibadda ka hela ama u baxay oo tilmaamay in jaamacadda Jabuuti ay tahay jaamacad dhalinyar balse haddana iyadu quwad leh oo waxyaabo fara badan markaasi iyada laga heli karayo oo isagu ku qanacsan yahay jaamacaddu duruusta iyo cilmiga kala duwan ee laga bixinayo waxaana wiilkaasi dhalinyaradu isagu jaamacadda uu gudbay balse isagu markaasi uu helay lacago buursiya isagoo qaybta liisansi xagga taariikhda isagu helay dibadda u baxaya si uu dibadda uga soo dhigto waxbarashadiisa wiilkaasi oo la yiraahdo good jaamac ayaa waxa uu tagayaa dhinaca dalka Faransiiska inkasta uu haddana uu doonayo inuu ku soo laabto dalkiisa oo jaamacadda halkaasi uu ka sii ambaqaado xagga waxbarashadooda waxaana uu tilmaamay waxaan in ardayda reer Jabuuti ee iyagu jaamacadda dhex joogay ay ka nasiib badan yihiin ardayda iyagu u baxaya dibadda ee markaasi waxbarashadooda iyagu halkaasi u tagaya taasi oo ardaydu ay la joogaan qoyskoodii iyo dadkoodii ee niyadda ay dhisan tahay halka ardayda dibadda u baxaysa iyagu ay ka fogaanayaan qoysaskoodii balse taasi haddana ay ardayda Jabuuti ku sugan ee jaamacaddooda wax ka baranaya ay ka nasiib badan yihiin marka laga hadlo xagga natiijada iyo weliba nasiibka ay u yeeli karaan in ay meel sare ay jaamacadda ay ka gaaraan waxaana wiilkaasi uu tilmaamay in uu jaamacadda Jabuuti isagu kollayba uu ku soo laami doono waxaana diyaar u ahay ayaa yiri inaan waddankayga u adeego oo u shaqeeyo kadib cilmiga iyo aqoonta aan waddankayga ka helay inkastoo waxbarashada aan dibadda ugu baxayo ay tahay mid wax ii soo kordhinaysa balse haddana dalkaygu uu yahay ka hortaba aan wixii cilmiga aan helay aan uga faa'iideynayo isla mar ahaantaana waxbarashadu ay noqon doonto mid sidaasi ku hirgasha wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha isboortiga mudane xasan faarax mudane ayaa waxa maanta uu si rasmi u dhaqaajiyay ciyaaraha tartanka bisha barakeysan ee Ramadan loogu talagalay gaar ahaan ciyaaro kala jaajada oo iyagu ka dhici doona caasimadda Jabuuti iyo shanta gobol ee dalka gudihiisa waxaana ciyaarahaasi ay yihiin kuwa saaka shir la xiriira uu qabtay wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha isboortiga mudane xasan faarax mudane hadal gaaban halkaas uu ka jeediyay waxa wasiirku ugu mahadceliyay kooxaha kooxaha iyo kooxda caasimadda Jabuuti iyo kuwa ka yimid dhinaca gobolada dalka gudihiisa oo ka soo jawaabay martiqaadka wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha isboortigu ay u fiisay kooxahaasi kala duwan iyagoo u xilsaaran soo qabanqaabinta iyo hirgelinta tartamada dhinaca bisha barakeysan ee Ramadan waxaana uu tilmaamay wasiirku in tartamadu ay yihiin kuwo sanadooyin dambe si wanaagsan loo maareeyo oo dhalin fara badan oo firfircoon iyagoo ay ka qayb qaataan marintooda waxaana uu tilmaamay in Ramadaanadu in tartamada dhinaca xayaadu ay markaasi si wanaagsan ay u dhaceen Ramadaanada la soo dhaafana tartamadu ayna ahayn bay markaasi isku dibireen balse ay noqon doonaan sanadkii hore sanadkaba oo si aad u wanaagsan oo sanadkii marka laga soo bilaabo la isku dibiriyay oo la habeeyay maanta halkii ka soo socon doona taasoo uu sheegay wasiirku inuu ku faraxsan yahay natiijooyinka ka soo baxaya dhinaca ciyaaraha si wada ahaaneed loogu qaban qaabiyo gobolada kala duwan iyo xaafadaha kala duwan ee caasimadda ciyaarahaasi oo iyagu ah kuwa guud ahaan si wanaagsan dhalinyartu ay qabtaan
waxaana wasiirku mar kale uu sheegay inuu magaceynayo dhalinyarada sidii aasbeeta fircoon ee ka soo qayb qaadanaya hirgelinta iyo malmarinta tartamadaasi kala duwan ee xagga tartamada bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana kadib halkaasi loo gudbay bixinta kubado loogu talagalay in kooxaha kala duwan ay ku qaban qaadi karaan tartamada dhinaca kubadda cagta gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan taasi oo wasiirka dhanka ciyaaraha isboortiga uu markaasi sheegay in wasaaraddiisu ay sanad walba ay qabato tartamadaasi dhinaca kubadda cagta ee loogu talagalay dhalinyarada gaar ahaan bisha barakeysan ee Ramadaan si ay dhalinyaradu ay si wanaagsan markaasi uga bixi karaan haddaba bisha barakeysan ee Ramadaan inta lagu guda jiro waxaa guud ahaan isbedela nolosheena gaar ahaan nolosha dadka reer Jabuuti oo iyaga waxyaabaha iyagu jira ay noqdaan kuwo waqtiyada qaarkood isbedela cunnada la cunayo raashinku markaasi sidoo kale isla isbedelo waxaan hadda inta badan aan isticmaalnaa waxyaabo iyagu daqiiq iyagu noqda sida sarwaanka iyo heeda oo markaasi kuwa sida aadka loo isticmaalo gaar ahaan waqtiyada suxuurta ee la afxeenayo inta ayna cadceedu soo bixin taasi oo lagu ambaqaado ama lagu bilaabo bisha barakeysan ee Ramadaan iyo maalin walba oo la soomayo qiimaha ma kicsan saacadiisi waa caadigiisi waxaliya toban karan kiloog maalintii misan lagu iibsamsa ilaa laba kintaal waa laga iibsaday annaga waan kinno waxa ay tahay sarweenka ama hay'adda midiyadu la kala hufo la tumo la kala haadiyo oo ka dibna markaasi dadka la saaro oo qoys walba ama xaafad walba oo Jamhuuriyadda Jabuuti ka tirsanteeda badan dadku habeenkii sabarka ama saddexda habeenimo ilaa afarta u kacaan si ay u suxuurtaan ayna uga fiicnaadaan ilaa inta ay bacayso dhinaca cadceed ka soo bixida waxa haddaba raashinkaas uu yahay midda Jabuuti si aad markaasi looga yaqaano halka dadkana ay noloshooda ay ka helaan oo quto daruuri markaasi ay ka helaan waxaana sida aynu waraysigaas u maqaynay qiimaha lagu iibsado sarreenka ama heedu yahay mid aanan kicin sida raashinka kale isaga markaasi la quuto dhinaca ciyaaraha isboorti haddii markan aynu eegno kooxda sidii koolahaas oo ku guuleysatay horyaalkii qaran ee kubadda cagta heerka koowaad ee sanadkan ayaa waxa ay isu diyaarinaysaa si aad gaar ahaan ciyaarta ay la ciyaari doonto kooxda alwaxda loo yaqaano dhinaca dalka Sacuudi Arabia haddaba kooxdaasi sidii koolahaas waxay soo ciyaartay ciyaaro fara badan oo iyagu ay isugu diyaarinaysay ciyaartaasi dhinaca ururka jaamacadda carabta dalalka ka mid ah isugu yimaadaan kooxda sidii koolahaas waxaa la soo ciyaartay kooxda dalka Rwanda oo sawiradaas aynu ku arkayno halka ciyaartaasi ay wadi tahay mid ciyaartooyda kooxda sidii koolaas ay sitaan dalkaasi لينيغا كوخ لا رواندا dalkaasi buuga ay siteen waxaana ciyaartaasi ay noqotay mid kooxdaasi sidii kooxdaas iyo markii horeysay ay kaga bayso kooxdaasi dalka Rwanda ka socotay hal gool iyo iyagoo ciyaartuna ahayd mid ahaantii si aad u qurux badan uga dhacday dhinaca dalkaasi Rwanda ay daawadayaal fara badan ay ka qayb qaadanayeen waxaana kooxdaasi sidii kooxdaas iyo ay sidoo kale ka soo qayb qaadatay ciyaaro saaxiibtinimo ka dhacay dhinaca dalka Itoobiya gaar ahaan adiga dhawe iyo waliba ciyaaro kale ay la ciyaartay kooxo iyagu markaasi sida ahaad kuwa Bahrain oo iyada ay kala soo qayb qaadatay ciyaarihii kal hore ama sanadkii soo horeeyay ee ciyaaraha dhinaca jaamacadda carabta waxa sanadkan mar kale kooxdaasi sidii kooxdaas ay soo baxday ciyaaraha sawirka jaamacadda carabta waxaana ciyaarta labada dhinac ay soo hormar doonaan ee aadka loo sugayo ay dhici doontaa maalinta Isniinta lagu soo eedan habeenka saacadu markay tahay 9 habeenimo ay ka dhici doonta garoonka guuleed 300 oo faan ayaa lagu galayaa ciyaartaasi oo iyagu qaban qaadayda iyo diyaarinteeda ay si aad ugu howleeyeen kooxda sidii kooxdaas iyo mas'uuliyiinteeda ciyaartooyda sidii kooxdaas waxay yihiin ciyaartooyda markan ugu firfircoon horyaalka qaran ee heerka koowaad iyaga oo labo hay'adood markaasi gacan siiyaan maalyahan kooxdaasi waana sidii iyo kooxdaas oo isbarsaday si ay kooxdaasi uga soo dhigaan kooxdooda heer sare sida ay noo sheegeen mas'uuliyiinta kooxdaasi sidii kooxdaasna waxa ay ku tala jiraan in ciyaarta Djibouti ay ka saaraan xuduudaha Afrika oo meel fog markaasi ay gaarsiiyaan tani oo marka loo gashay oo gaar ahaan ku tagtay dhinaca dalka ama ku ciyaari doonta ciyaar dhinaca dalka Saudi Arabia marka ciyaartan ay ka dhacdo garoonka guuleed maalinta Isniinta ee lagu soo eedan haddii ay doodo wararka lagu soo aadana waxaad kula socon doontaan warar la xiriira ciyaartaasi iyo sida la isugu diyaarinayo haddii markan ay lagu gudbino wararka xagga caalamka gaar ahaan dhinaca dalka Pakistan Benazir Bhutto oo hore ra'iisul wasaare uga ahaa dalkaasi Pakistan ayaa waxa markan ay qabsatay waqtiga ama taariikhda 18 Oktoobar si ay ugu soo laabato dalkaasi Pakistan taasoo la sheegayo in ay gorgortan la galayso madaxweynaha dalkaasi Pakistan Pervez Musharraf si ay tirada ugu wadaagi karto shuruudo qaarkood ayaa Pervez Musharraf uu ku xiray Benazir Bhutto si ay ugu soo noqon karto dhinaca dalkaasi Pakistan faalada warkaasi iyo wariye Maxamuud Barabokh
Benazir Bhutto oo horay uga soo haanaysay ra-iisul wasaare dowladda dalka Bakistan oo dalka dibadda ka joogta ayaa la sugayaa inay ku soo noqoto bisha Oktoobar ee fooda lagu soo heysay 18-keyga kolkii xukuumadda dalkaasi ay u kurgashay sidii markaasi afin lagu soo gudbin lahaa ayaa taasi ay keentay in afintaasi ay ku timaado dembiyadii lagu eedeeyey ee dhinaca musuqmaasuqa ku aadanaa waxay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee qabatay xilka ra-iisul wasaarnimo ee dalkaasi sanadkii 1988 dadka taageersan xisbiga ay madaxa ka ahayd ee BBB loo yaqaano ayaa soo dhoweeyey go-aanka u asmaxayeen dalka ay dibadda markaasi ay dalka dib ugu soo noqoto muddo dhowr sannadood ayaa nabadgelyo la-aan markaasi ay ku sugnayd meelo kala duwan oo waddankaasi gudihiisa taasina u asmaxday in waddanka ay iskaga baxdo waxaana ay keentay inay iska degto si rasmi ahaana dalka ingiriiska oo nabadgelyo siyaasadeed ay ku degtay sanadkii 1999 waxay ku leegsan tahay haatan inay ka qayb qaadato siyaasadda dalka Bakistan taasi oo la wadaagi doonto maamulka madaxweynaha dalkaasi Bakistan Pervez Musharraf oo isagu markaasi u fidiyey si afin ay ugu soo noqoto dalkeedii oo haatan ay ka maqan tahay muddo dhowr sannadood waxaana taasi ay keentay in go-aankaasi ay si weyn ugu soo dhoweeyeen dhammaan dadka reer Bakistan ee iyagu taageersan arrimaha xagga siyaasadda ee Benazir Bhutto oo iyadu madax ka ahayd xisbigii BBB lagu magacaabayay ee ummadda shacbiga ee reer Bakistan ay lahaayeen waxaana go-aankaasi ay noqotay mid si weyn ugu soo dhoweeyeen dhammaan dadka taageersan iyo arrimaha ku aadan xagga siyaasadda ee madaxweynaha waddankaasi Pervez Musharraf sida ugu soo dhoweeyey Benazir Bhutto in dalka ay dib ugu soo noqoto dont elle entend bien profiter pour redevenir une figure forte de la dhinaca dalka Côte d'Ivoire kadib nabadii ka dhacay dalkaasi ee keergashay ee isku siiyeen kooxihii laga soo sameeyay iyo ciidamada dowladda dalkaasi Côte d'Ivoire iyo weliba madaxweyne Laurent Gbagbo ayaa waxaa markan ay ciidamada Faransiisku ay ka baxayaan goobahoodii hore ee maamulkooda ay hayeen waxaana markan ay mafaatiixdii ku wareejiyeen gaar ahaan mafaatiixdii garoonka dowladaha ee magaalada Yamoussoukro ciidamada dalkaasi Côte d'Ivoire waana tan afalba warkaas ciidamada Faransiiska ee qaabilsan sugidda ilaalada ammaanka ee garoonka ku yaala magaalada Yamoussoukro ee dalka Côte d'Ivoire ayaa xilkii iyo mas'uuliyadiisii waxaa gacanta ay ka gasheen ciidanka iyagoo qaabilsan ilaalada ammaanka ee dalkaasi Côte d'Ivoire oo haddeeto sugi doona ilaalada xagga amniga ee garoonka sida ay ka hadoolaan oo ku yaala magaalada Yamoussoukro ciidanka Faransiiska waxaa hawshaasi ay soo wadeen tan iyo sanadkii 2002 kolkii ay dalkaasi bilow noqotay arrimo kala duwan oo xag siyaasadeed ahaa taasoo keentay asaaska kooxo hubeysan oo jabaada oo ka dagaalamaya waddankaasi madaxa ciidanka haatan loo dhiibay hawshaasi ayaa iyagu mahadcelin u soo jeediyay ciidamada Faransiiska sidii geesinimada lahayd ay u guteen waajibaadkaasi waxaana ay hambaliyo bogaadin u soo jeediyeen dowladda dalka Faransiiska madaxa ciidanka Faransiiska ayaa ku dhiirigeliyay in halkaasi ay si wanaagsan ay u guteen haddii kol xilkii loo wareejiyay ciidamada dalkaasi Côte d'Ivoire si ay u sugaan amniga garoonka diyaaradaha ku yaala magaalada Yamoussoukro ee dalkaasi Côte d'Ivoire waxaa tallaabadaasi ay tahay mid ka dhaxaysa iskaashiga labada dowladood quartier général des forces nouvelles reste وهجاء جهورك عالم هودو كورونا في الرابطة ساعة سعودة في الهدية أنا مركب أي مدن دولك إيطالياني وحا بسوق مدحوينها دولك السودان عمر حسن البشير أو كل عليه شيء دليل يسر يدين في المسيحي جاءها بينواع اللي يتبنى بنا عدلك الإنجليزي وحا يقولوا واي كل فتان جزيرة السمافرة دولك الإنجليزي ديس كان إن عدلك الإنجليزي كان بانجي يسوي كانت سديدان كسوكا حق بانجورا يا لك عبسي قلائل يسوي كأو كاسي أو بنك الدولي ذاك الجنسكو يقدر مالين مداري كده بنك ده فربنا أو بنك يسمع عملوها أي العيون دي مالين دي أي كقاتل من عشرين واحد سود أي هناك صحفي زاويان وإيش عين أي ورجيس كان يوم تايمز أي كاسي وصف سنة صحفي ما بيرك عشرين أي السود أي فعلى وركاس يو باخ En visite à Rome, madaxweynaha dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashir ayaa shaaca ka qaaday si degdeg ah waxa looga qabtay xaaladda gobolka Darfur ee ku yaala galbeedka waddanka Suudaan isagoo socdaal booqasho ah ku jooga dalka Talyaaniga ayaa sidaasi u aqoonsaday in ogolaasho uu ka muujiyo wadahadal loo la yeesho madaxda kooxaha ka dagaalamaya gobolkaasi Darfur ee ku yaala galbeedka waddanka Suudaan waxaa qorshahaasi ay isla qaateen intii uu ku sugnaa dalkaasi Talyaaniga ra'iisul wasaaraha xukuumadda Talyaaniga Romano Prodi iyo ninka
isagoo ugu sarreeya diinta masiixiga baabin waa 16 dalka Indonesia dhowr gobol oo ku yaala xagga waqooyiga waxaa gilgilay dhulgariir laxaadley oo waxyeelo weyn u geystay xagga aadamiga xagga qalabba gobolka Sumatra lagu magacaabay dhulgariirkaasi oo ku dhuftay qiyaasihiisu ay dhahayd 8 dhibic marka loo eego qiyaasta reesharka 17 qof dad gaaraya ayaa ku dhintay 20 qof oo kalena waa ay ku dhaceen tallaabadaasi waa mid ka dambaysa dhibaatada tsunami ee waddankaasi ku jiiday bangiga lagu magacaabo bangiga xagga sideeda taagan dalka Ingiriiska ayaa la soo gudbinay intan dambe dhibaatooyin xagga lacagaha uu isticmaalay tani ay keentay inay ka dhigayaan iyagu lacagaha markaas ku lahay dhigalay bangigaasi dalka Ingiriiska ku yaala in wixii lacago ay ku lahaayeen loo casho haddii kon bangigaasi ay la soo gudbinadeen ay yiraahdeen dhibaatooyin xagga dhaqaalaha waxa bangigaasi isaga caawimaad ka sugaya bangiga weyn ee dalkaasi Ingiriiska oo ugu baaqay in caawimaad xagga dhaqaalaha uu soo doono dalka Mexico magaalada caasimadda waxa uu dhalgay gooyeen isagoo kamid ahaa mas'uuliyiinta waddankaas oo qaabilsan xagga arrimaha siyaasadda waxa lagu khaarijiyay rasaas madaxa lagaga toogtay ninkaasi waxaase kolkiiba lagu dhaqaaqay kiis Denversa oo ay rays Blaze ku ammaanka waddankaasi ay qaadeen sidii loo lahaa cidii ka dambeysay falkaasi dilka ee loo geystay ninka mas'uulka ahaa dalka Shiinaha waxa uu danaga qaaday nin suxufi oo shaqeynayay idaacadda New York Times lagu magacaabo isagoo lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay bixinta wararka duwan oo dhibaato ku ah arrimaha xagga siyaasadda ee dalkaasi Shiinaha ninkaasi oo gacanta lagu dhigay toddobaadkan ka soo gudbinay ayaa go'aankaasi ay qaaday maxkamad ku taalo waddanka Talyaaniga waddanka Shiinaha inay rafaac u qaaday qui s'est félicité de cette libération. Le seul crime commis par leurs collaborateurs était d'avoir exercé son métier. وحدة سوديتها صحفي عسيز يعني وش غينا يورجيس كان نيويورك تايمز وده اللي قرب أيام ده وريال وكل عاوي حاجة تلفزيون كانوا بيجوا قبلين نايت ما بين بعض يعبد مساعد المعادي هاي أي نصيب الدور لو حنا كنا والله عنا ياكل في ورد السعود يا رسول محمد بن رباح يقول لك بعطي إني كنا وحنا لا هاي هذا الوسيل إياه إذا ده ونكسب